Maanta waxaan ka hadli doonaa arrin cabsideeda leh oo ka dhacda meelaha dalxiiska loo aado. Anigoo arrintan way cajab gelisay maxaa yeelay laga soo bilaabo yaraantaydii waxaan ku riyoonayay in aan aado dhammaan xeebaha adduunka, balse hadda waa in aan beddelaa riyadaydii maxaa yeelay waxaan ogaaday inay khatar badan ku geedaaman tahay. Janaalka Salmaan Magaale maanta wuxuu idiin soo qaban doonaa qaar ka mid ah goobaha dalxiiska ugu khatarta badan, taasoo la idinkaga baahan yahay inaad ka fogaataan. Fadlan nala soco ilaa iyo dhammaadka fiidiyowgan, like-tana nagu kaalmee si ay dhiirigelin nagu noqoto. Xeebta New Smyrna, Florida gudaheeda waxaa ka dhaca weeraro u geysta libaax badeedka 1 kiiloomitir oo laba jibaaranay xeebtani, waxaana ka dhacdo dhimasho u geysta libaax badeedka. Waxaa la diiwaan geliyay in ka badan 230 weerar u geysta libaax badeedka laga soo bilaabo sanadkii 1882. Waxay ku fasireen khubarada badda in arrinku u laabanayo in laga helo goobtaas libaax badeed aad u badan. Haddii aan ka fikirno arrinkan, dadka soo booqanayo xeebtani inay dabaashaan darteed ama inay ka kalluumaystaan, waa inay ogaadaan inay tahay meeshani caasimadda caalamka libaax badeedka. Shenzhen ee Shiinaha, waxaa lagu tiriyaa xeebtani Shenzhen meesha keliya ee lagu baashaalo inta lagu guda jiro xilliga xagaaga ee kulul ee waddanka Shiinaha. Haddaba xilligan dalxiiska ayaa ah mid aad u qasan aaggan. Dadka tiradooda ayaa aad u badan, ilaalada kore ee badda ma fahmi karaan kuwa qaska ka wada. Midaas ayaa u sahlayso tuugadu in ay xadaan boorsooyinka ama naftooda ay khatar geliyaan. Xeebta Phi Phi, Thailand, waxaa lagu tiriyaa Thailand inay tahay wadamada dalxiisayaasha soo jiitaan marka loo fiiriyo quruxdeeda. Meelaha nasashada ee ugu caansan waddankaas waxaa ka mid ah xeebta Phi Phi. Marka aad joogto jasiiradan yar, waxaad awoodaa inaad iska dhex nasato iftiinka qorraxda iyo inaad ku dabaalato biyahan cajiibka ah. Run ahaantii waa aag lama ilaawaan ah, balse waa inaad markasta aad digtoonaataa inta aad ku guda jirto dabaashaada, maxaa yeelay waxaa laga helaa biyahaasi masaska badda. Waxaa laga yaabaa inay kaa cabsiiyaan ilaa aad ka dhimato ama ayba ku soo weeraraan. Mararka qaar waxay u soo xamaartaan masaskani dhinaca xeebta waxayna ka cabsiiyaan dalxiisayaasha. Waxaan kugu nasteexaynayaa inaad taxadar badnaato maxaa yeelay masaskani sunta leh ma kaftamaan. Jasiiradda Heard ee Antarctica, waxaa la sheegaa jasiiradan inay ka tirsan tahay Australia. Tani waa sababta heerkulka oo hooseeya oo ka dhigaya meeshani meel nolol aan loogu talagelin. Laakiin goobtani waxaa khatar ka dhigay waa falkaano firfircoon oo lagu magacaabo Big Bend, waxaana dhaca dhul gariiro uu sababo falkaanaha, waxaana buuxsamo xeebta jasiiradan, waxayna yeelataa hirar aad u xoog badan. Mideeda kale, waa meel aad u fog sida in ay dhacdo goob caafimaad meel loo soconayo 2 isbuuc badda korkeeda. Dadka halkan soo booqda waxaa yaraada heerkulka jirkooda. Jasiiradda Fraser ee Australia, waxay dhacdaa xeebta bari ee Australia, waxayna tahay meel ku badan xayawaanada duurjoogta ah, taasoo suurtagal ah in ay ku soo weeraraan. Sidoo kale waxaa laga helaa libaax badeedka iyo qaar ka mid ah kalluumada wax ugaarsada. Sidoo kale waxaa laga helaa xeebtani masas sun aad u badan leh. Haddii aadan taxadarin, waxaad isku dayaysaa inaad ka cararto goobtani khatarta badan, laakiin waxaa ku soo qabanayo qaar ka mid ah duurka inta aadan gaarin goobta aad ku badbaadi kartid. Cabo, Australia, waxaa lagu tiriyaa xeebahani inay yihiin meel aad u khatar badan marka loo fiiriyo dalxiisayaasha, waxaana laga helaa biyahani qindiilka badda kaasoo ah midka ugu sunta badan caalamka. Sidoo kale dhulkan kuma badbaadaysid
maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inuu ku waxyeeleeyo shimbirka shibnim. Waa shimbir shabaha goronyada. Shimbirka wuxuu leeyahay dhibaatooyin xunxun sida in uu kugu dhufto gafuurkiisa dheer oo adeega badan, cidiyihiisa halista ah, taasoo dhaawac u keensanaysa insaanka. Dhibaatada meeshani kuma eko qindiilka badda iyo shimbirkaasi xeebta kugu sugayo. Sidoo kale waxaa ku nool masas aad u badan oo suntoodu badan tahay. Taasi way kaga filan tahay cabsida doon-wadayaasha halista ah. Xeebta Crosby waa xeeb dhacda 3 kiiloomitir waqooyiga magaalada Liverpool. Waxaa lagu garanayaa xeebtani bacaadkeeda dhaqaaqaya iyo sanamyada ku kordhisan bacaadka, iyadoo biyuhu ay qarinayaan markasta uu heerku kor u kaco. Waxay leedahay digniino aad u badan sida in aan la gelin xeebta wax ka badan 50 mitir. In badan oo dalxiisayaasha ka mid ah ayaa u dhawaaday intaa wax ka badan si ay u soo daawadaan sanamyada, laakiin arrinku wuxuu ku soo dhammaaday inuu liqo bacaadka. Jasiiradda Kilauea waxaa lagu tiriyaa jasiiraddan Hawaii gudaheeda in ay tahay meelaha ugu caansan ee dalxiiska loo aado ee Badweynta Pacific. Waxaa laga helaa jasiiraddan volkaanada Kilauea, waana volkaano ku fidsan jasiiradoo dhan, wuxuuna gaarayaa volkaanaha dhirir aad u dheer. Mararka qaarna wuxuu soo galaa biyaha sidii webiga isagoo u qulqulaya. Dhammaanteen waan wada ognahay inay keenayso dhibaato qofkii u dhawaada biyahaasi. Iyadoo arrinkaas uu jiro, qaar ka mid ah dalxiisayaasha ayaa aado meel u dhow volkaanahan si ay sawirro uga soo qaataan. Run ahaantii goobahani aan soo sheegay oo idil waa kuwo halistooda wata. Haddii aad u aadid dalxiis ama wax la mid ah, waa inaad iska ilaalisaa dhibaatooyinkan, taxaddarna aad yeelataa. Qaybtan waa qaybtii koowaad. Waa inoo qaybta labaad iyo fiidiyoo cusub. Waxaan idin rajaynayaa caafimaad taam ah iyo isku soo noqod wanaagsan. Waadna ku mahadsantihiin daawashada fiidiyowgan. Ha naga ilaawina inaad like saartaan fiidiyowgan, kuna soo biirtaan channelka haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.